waxaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee ceergaabo si mugya miisaan loogu soo dhaweeyay Gudoomiyaha ururka Dhaweeyey ee wadada Tabca ee wadanka dibadiisa samafalay Axmed Cumar Maxamed jabaabul oo safar uga soo kicay timid dalka dibadiisa waxaana lagu hortagay duleedka dhinaca galbeed ee magaalada waxaana dadkii halkaasi ku soo dhaweynayay kamid ah xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gudida wadada Tabca waayeel waxgarad aqoon-yahano iyo haween waxaana markii halkaasi uu soo gaaray samafalay Axmed Cumar Maxamed jabaabul ay waxa mid u gacan qaaday mas'uuliyiintii iyo dadkii halkaasi ku soo dhaweynayay waxaana halkaasi hadal soo dhaweynay ka soo jeediyay qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceergaabo gudida wadada Tabca waayeel waxgarad kuwaas oo dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay Gudoomiyaha Jaaliyada ee ururka Dhaweeyey ee wadanka dibadiisa samafalay Axmed Cumar jabaabul Cumar jabaabul waa ninka wadada isaga iyo saaxiibadiisa maxay tahay qurbaha habliyeennamaba waa nimankaas wadada kiciyay ee wada qaadhaankeedii iyo lacagteedii qaadhaankeedii iyo taladeedii iyo mucadaadkii iyo imkaaniyaadkii oo dhan keenay waxaanu maanta ku soo dhaweynaynaa magaalada ceergaabo oo maanta soo biiray waxaanu leenahay soo dhawow Axmed Cumar jabaabul halkan waxaan saaka u taaganay inaan soo dhaweyno Axmed Cumar jabaabul Gudoomiyaha gudida wadada Tabca qurba joog iyo qolqol joogba waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagi waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaalada ceergaabo tacabkeed wadada Tabca gelisay muddo dheerna maanta waad nala arki doontaa Gudoomiyaha Axmed Cumar jabaabul waa nin weyn oo reer Sanaaga guud ahaan gobolkana wax badan ka qabtay waxaan kugu soo dhaweynaynaa milgaha iyo maamuuska reer Sanaag ku hayaan taasi oo ah baahiyahooda iyo hadii ku isgarabtaaga bulshada gobolka Sanaag ee aad la gabar taagan tahay waxaan ugu leenahay soo dhawo ninka wax qabta saasa loogu soo baxayaa dadku saasay ugu mahadnaqayaan waxa leeyahay qurba jooga kalena waa Axmed ku dayda oo kuwiini la wadayna jazakallahu khayr way muuqataa oo tacabkiini Tabca qurba joogii gashaday Axmed hormuudka uu ahaa iyo rag kale badan iyo hablaha kale badaniba waa taas oo maanta saas la idin soo dhaweynayaa kulligiina waa la idin soo wada dhaweynayaa marka timaadaan ninka tacabka gashada gobolkiisa kuwa kalena waxaan leeyahay aan wali waxba gashan war Tabca wax soo gashada bulshada Sanaag ama ceergaabo halka joogta gudaha joogta intii Tabca iskarab taagtay waxaan leeyahay jazakallahu khayr waynu dadaalaynaa tabci way dhamaanaysaa waxaanu soo dhaweynaynaa Axmed Cumar jabaabul waxa weeye nin qaaliya oo halgamaa oo aad iyo aad uga soo shaqeeyay gobolka Sanaag wadada Tabca iyo hareeraheedaba si mug iyo miisaan bale ayaanu kuugu soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhawow Gudoomiye soo dhawow baan ku leenahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa Tabca wadadii tacabka gashateena wuu muuqday dirto tacabki aad iyo aad buu muuqday wadadii 3 saacadood loo socon jiray hadda 3 saacadood baa loo socdaa gaarigayna 3 buu soconaya waa ilaahay mahadi aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa Gudoomiye wadadu markii hore say ahaydna waan maray haddana waan maray tacab baa ka qabateen adiga iyo asxaabtaada kale qurba jooga qolqol joogay bay ku hadhay wax contribution lagama hayo gudaha aynu diyaar garowna sidaynu uga qayb qaadan lahayn wadada Gudoomiyaha Axmed Cumar jabaabul waxaan leenahay Axmed ku soo dhawow magaalada ceergaabo kaalin weyn baad kaga jirtaa mashruuca wax qabadka wadada dib u habeynta ama dib u dhisidda wadada Tabca aad baan kuugu hambalyeynaa hawsha doorka weyn aad kaga jirto Walaal barakaad waxaan soo dhaweynaynaa halkan Gudoomiyaha wadada Tabca Axmed Cumar jabaabul waxaan leenahay Axmed horta ku soo dhawow wadadaadii anaguna waxaan nahay reer Tabca nahay lafteedu waana ka qayb galeynaa insha Allah hormarka noo socdaal ku daba galeynaa insha Allah nin kasta oo reer Sanaagana waxa weeye daruuri ah inuu ka qayb galo wadada waxa weeye ilintii aanu ku nooleen weeye waa xeebti anigu haddaanba u dheendhaashaday haddaanba dayo soo iibsaday oo raba inaan meeshii ka shaqeeyo waana ka qayb galaya insha Allah Cumar marka ilaahay laga cabsado mashruuca waxa ka galay ama hawshu u galay qof bini aadana oo u galay waxaan filayaa inaanu jirin waxaan leeyahay Axmed soo dhawow waxaana halkaasi ka hadlay Gudoomiyaha ururka Dhaweeyey ee wadada Tabca ee wadanka dibadiisa samafalay Axmed Cumar jabaabul oo ka warramay ujeedada safarkan uu ku yimid gobolka Sanaag anigu saas ma ahayn saxinta waan soo dhaweynay waxaana samafalay insha Allah wadada Tabca ma wadno reen leeyahay waa wadno reer Sanaag leeyihiin Sanaag iyo wixii Soomaali wixii min aadam oo mid noonan hadii la haynaado marka uga faa'iideysanay intaana waqtiga reer Sanaag wadada lagama laha afarta kone gobolka insha Allah waan tagi doonaa
bariga galbeedka koonfurta haddii laha yidhaahdo qaaraanka waa laga rabaa waa laga sugayaa wadadana guddiga lafteedana waynu insha allah ballaarin doonaa guddi reer sanaaga waynu ka dhigi doonaa hadalku maanta mahadnaq weeye wadada hawl badan baa loo soo galay cabdirax albataan ka mid ahaa dadkii hawsha u soo galay waxaan mahad celinayaa golaha lacagta laga ururiyo oo la yidhaahdo uhiili sanaag markaan uhiili sanaag u bixinaynay wax hoose aan u bixin lahayne inaanu sanaag ku soconno xag sare baan usii soconnaa reer sanaagoo dhan inaan isugu keenno insha allah baanu rajaynaynaa marka insha allah wadada way iska samaysmaysaa markii aan bilaabaynay waana la yaabanaa ka hadla laamigii baaba dhowdhow insha allah aanu rajaynay inay naqsulaan u noqoto waxaan u socdaana waxa weeye feeskii labaad baa la bilaabayaa feeska labaadna wuxuu noqon doonaa sidii laami loo saari lahaa oo carrituulkii loo bilaabi lahaa qalab baa soo socda rugleydii iyo sheewal iyo waan sugaynaa iyo iska rugooyinba insha allah qalabkaas hadda 6 baa jooga ilaa 3 kalena insha allah way iman doonaan safarkan gudoomiyaha ururka dhiir ayaa salka ku haya sidii ugu kuurgali lahaa habsami socodka dhismaha wadada Tabca muddooyinkii ugu dambeysay xawli uga socday wadada isku xidha magaalooyinka Ceergaabo iyo Maydhe Cali Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.